Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh. Walaalayga qaaliga ah meel walba adduunka aad ka joogtaan, waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Maanta waxaan idin wadaa keekaas quruxda badan sida fududa u sameyn waa ila arki doontaan. Walaalayga qaaliga waxaan idinka codsanayaa haddii aad ka heshaan fiidiyowga inaad like ii saarto, la wadaagto asxaabtaada, wixii fikrad ahna qaybta commentiga iigu reeb. Walaalayga qaaliga keegay waxaan ka sameysan doonaa 2 koob oo bur ah, 1 koob oo sokor ah, koobkaas kusoo qiyaastay burka aan kusoo qiyaastay sokorta. Waxaa halkan kusoo shubtay 2 qaando oo caano ah, qaandada cuntada. Waxaa kaloo halkan ku haystaa 4 xabo oo ukun ah. Waxaa isticmaalaya margarine ama butter. Waxaa ka isticmaalaya qiyaasta 250 gram. Waa wada isticmaalaya geedkana u jeedin. Waxaa kaloo halkan ku haystaa vanilla. Hal qaando waaye qiyaastii vanilla haysto. Midaan waa baking powder ayadana 1 qaando ka isticmaalaya qiyaasta meesha waa 1 qaando. Mashiintaan aanu isticmaali doona ila socod walaalayga qaaliga ah. Koodi waxaa kusoo shubanaya margarine ama butterka oo isku mid nooca oo loogu talagalay keega lagu sameysto. Waxaa sameyn doona walaalayga qaaliga sokorta iyo butterka isku soo garaacaya ilaa ay sokorta ay kasoo dhalaaleyso. Waxaa sameynaya si fiican mashiinta ugu garaacaya. Walaalayga qaaliga ah waxaan idinka codsanayaa fiidiyowga haddii aad ka hesheen like ii saarto, la wadaagto asxaabtaada, wixii fikrad ahna qaybta commentiga iigu reeb. Mashiintaan isticmaalaya iga caawineysa ilaa ay ka qasmeyso. Waxaa sameynaya si fiican ugu garaacaya xoogaa waqtiya siinaya. Marka walaalayga qaaliga ah waxaa fiican sokorta intay kaaga dhalaaleyso inaa si fiican ugu garaacdid. Weygaan haddaa baritid waxaa huwa inaad doolasho mid kaleenta aan cuni doonin. Huwaasha ani aada ugu helay saa u bartay doolashooyinkii kaleenta xitaa waa iska dhaafay noocana badana u sameystaa markasta u sameystaa. Saamidaan u bartay doolasho kale xaqiiqatan walaa ma aana sameysan. Marka walaalayga qaaliga ah xaqiiqdii waxaa idinka codsanayaa inaad soo tijaabisaan. Waa huwa inaad kasoo heli doontaan. Aaday u macaan tahay softina waaye. Butterka kasoo carfay laakiin subag camal oo natural oo carfeysa macaan ayadoo dhan xaqiiqatan. Soo tijaabiye waa idinka codsanayaa haddii aad soo tijaabisaan wixii kasoo heshaan feedback na ii soo celiya. Butterka markay si fiican isu dhexgaleen waxaa sameeyay 4 xabo ukunta kusoo darsanaya. Kulli ukunta hal mar ku wada daraya ma kala reebooyi hal mar isku wada daray. Marka waxaa sameynaya ayadana si fiican u garaacaya. Fiidiyowga xoogaa yar speedka waa dheerey inuu dheeraadaan diidaa. Marka walaalayga qaaliga ah soo tijaabi waa ka codsanaya sababtoo ani xaqiiqatan waa ka helay waxaas dhawal walaaga la wadaag ayagana say ugu faa'iideystaan. Marka walaalayga qaaliga waxaa sameynaya xoogaa yar in banaanka u bixisaan dareema waa soo celcelinaya. Marka walaalayga qaaliga waa u jeedaan sidaas qurux badan oo ku soo wadaa. Maasha Allah waxba yaan warki idinku dheereen. Marka waxaa sameynaya burka kusoo darsanaya. Ayr ugu soo darsanaya ama tartiib ugu soo darsanaya. Hal mar inaa ku wada daro ma rabo. Waxaa kaloo sameynaya oo kusoo darsanaya caanahan waxaa waaye 2 qaando qaandada cuntada ka isticmaala kusoo shubtay halkaaseete si fiican isugu garaacaya. Waxaa sameynaya burkeyga si tartiib iskugu soo darsanaa. Marka walaalayga qaaliga ah waxaa sameynaya oo kusoo darsanaya vanilla iyo baking hal mar isku daraya. Kadib xoogaa yaraan garaaca waxaa sameynaya burkii haddana ayr ugu soo darsan doona. Markii la socdo walaalayga qaaliga ah fiidiyowga codeynta qaladaad badan ka jiro waa dareemi karaa. Marka walaalayga waxay rajeynayaan inaad dulqaadan doontaan wixii aad fahmi weysaan qaybta hoose commentiga iigu reeba. Waa idinkaga soo jawaabi doonaa insha Allah. Waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. qalbi furan iyo niyad saafi ah. Marka walaalayga burkii kis ama tartiib ayr ugu soo darsanaya hal mar ku wada daraysa u jeedeenba. Waa kaas u jeedin softiga jileeca hadda fahmi kartaa. Ma dhib badna xaqiiqatan aad u macaan keegan marka tijaabisiin la dareemi kartiin. Please waxay idinka codsanayaa inaad soo tijaabisaan.
Walaalahayga qaaliga waxaa sameysanayaa birtii aan ku dubo lahaa keega. Waxaa sameynayaa batar aan marinaa si fiican suuga u marinaa geesaha ugu marinaa. Kadib haddaa u baahan tahay xoogo yar waxaa fiican burkina ku darsatid. Aniga waxaa ku darsaday fariisuul oo yacni yar in xad aad u yar oo bur ku darsaday. Kadib waxaa sameynayaa haskaga badin haddii kale inta hadhow doolshadaada waxay kor ka naqanaysaa qolof ama yacni adeega ka naqan kartaa wax yar aad u yar ku darso. Haddaa rabin waa iska dhaafi kartaa batarka kaliis uu kugu filan yahay kaagama dhagaayo. Marka walaalahayga qaaliga waxaa sameynayaa oo kusoo shubanayaa iska raali ahaada warka haddaa idinku badi anna waxaa isleeyahay qofkii daawado oo rabo inuu sameysto iyosan ka halaabin inuu ka khasaarin saas li ajligeeda u sameynayaa. Waa ku mahadsan tahay dulqaadkayga daawashada aad ku daawatay fiidiyooga. Haddaa ka hesho waxaan kaa xusanaa inaad like ii saarto, la wadaagta asxaabtaada iyo walaalahaaga si ay ugu faa'iideystaan. Wixii fikrad ahna qaybta commentiga igu reeba. Waad ku mahadsantiin daawashadiina. Waxaa sameynayaa keegayga waa isku soo celcelinaya waa simaaya hadhow haddii kale inta asaas ku deysid wuu ka soo daada karaa ama wuxuu noqon karaa dhinacu ka weynaan dhinacuna ka yaraan karaa. Markaas ilaa ay xad isku dayayna si fiican isla ekeysiiyo. Waa ujeedaan doolshooyinka kala camal ma ahan. Marka walaalahayga qaaliga waa ila arki doontaan fiidiyooga ilaa dhamaadka si ay ku soo baxdo. Ovenka waxaa geystay xogaas yaqaan daciyay furnada 180 kor iyo hoos geystay. Marka walaalahayga qaaliga waa ka soo qurux soft oo ku soo baxay. Testigna qofkii tijaabiyo baa sheegi karo ama intaan ku kulmi doono muuqaal kale cusub fi amaanillah. Assalaamu calaykum.